runtii waa ku faraxsanahay inaan soo booqdo mahadkii inuu asaasnay oo runtii shaqaynaya casharadii iyo socda diblomaasiyiintii oo runtii si fiican hadda kooraskii saddexaad bay wadaan international law iyo ADR bay wadaan waxay soo qaateen koorsyo kale aad u fiican foreign policy maaragtay analysis waxay soo qaateen regional iyo geopolitical maaragtay regional politics iminkana diplomatic communicationkii iyo protocol skillskii ama aan tickets wax la yiraahdo ayay runtii qaadan doonaan waxaan ku faraxsanay in kohortkii koowaad hadda ay maaragtay meel fiican marayso intaanu sanadku dhammaan insha Allah ay dhamayn doonaan waxaan rajaynaynaa sanadkiiba in ugu yaraan 2 dufcadood ay soo saarno marka dambana aynu sii kordhino oo ay maaragtay heer sare gaaraan imika waxaa traininka ku jira ilaa 63 shaqaale oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan waxaan rajaynaynaa traininkaasi inuu noqdo mid miro dhala sidii aad arkayseenba ardaydu ama shaqaaluhuna aad bay u xiiseynayaan aniguna runtii si dhow ayaanu la soconnaa oo dadaalada ma garanaysaa wasaaraddu ay ku jirtaan wuxuu noqon doonaa dadaalo ma garanaysaa lagu tayeynayo dhammaanba shaqaale weynaha wasaaradda taana waxay ka caawin doontaa in waajibaadkooda shaqo ay si wanaagsan ay u gutaan. This training is very important at all levels. It's not only for foreign ministry officials, but for officials at different government offices, non-government organizations, civil societies, even associations and unions, as long as they are interacting with different bodies, organizations, and even countries, they have to have this kind of training so that they can accomplish the objective of their interaction with the third party. كلي مركا محاها كورس كنا بلابني أد حيسوي إنه جوهاي because of Somaliland ومركي جوه رئيسة وسعر arrimaha dibadda ay hawshan ay isku daydo waana runtii hawl aad ay ugu baahantahay reer Somaliland ugu baahan yihiin runtii wasaaradda arrimaha dibadduna waxay ka tahay lafdhabar weyn bay ka tahay aqoonsiga Somaliland in ay sababaha ugu waaweyn bay ku jirtaaba because of muxuu connectionada faraha badan iyo waxyaalaha shaqooyinka qabanaysa ayaaba ah in aqoonsigeeda Somaliland ay markastaba ay dadaal ugu jirto markii aan ku dhex jirnay ama koorskan aan bilaabaynay saan ku sheegay xiisaha weyn oo nagu hay waxa kamid ah in aan yacni aqoonsiga inta badan dadkeenu muxuu ma sameeyaan like the researches waxyaalaha aqoonsiga diiday inaynu aqoonsiga hore u iman waayo ilaa dhowr iyo 30 sanadood aynu sugaynay aqoonsiga laakiin muxuu wuxuu naga caawin doonaa kooraskan oo xiise weyn uu noogu sii hayay in si akademiga aynu aqoonsiga u doonan karayno dabcan runtii sababtu waxa weeyaan qofku markuu doonayo inuu shaqo qabto horta shaqadan waa inuu aqoon u yeeshaa casharadna waxayna siinayaan inaan aqoon u yeelano in sidii aanu caalamka u gelin lahayn qadiyadda ugu iibgelin lahayn diblomaasiyad iyo isdhexgalka bulshooyinka iyo dunida sida loola dhilgarayo iyo dawladaha يعني qaabkii loo waajihi lahaa ay runtii tahay aqoonta halka ku qaadan waxa kamid ah shuruucda caalamiga kamid ah waxa kamid ah shuruuc goboleedyada kamid ah waxa kamid ah yani diblomaasiyadda iyada lafteeda oo fahan guud laga dadku inta badan aan laga haysan oo imika laakiin aan helay inaan fahan guud ka helo oo marka runtii casharadani waxay qayb weyn ka yihiin shaqadeedu siday horumar badan u yeelan lahayd marka runtii wax badan bay noo tareen marka wasaaradda arrimaha dibadda la joogo umaleynaya kaliya ma laakiin waxaan hubaa kooraskani inuu yahay core amba uu yahay foundation amba uu yahay asaaska shaqada ay ka qabanayaan so markasta oo uu kooraskan si habsamiya u socdo amba si fiican looga qayb qaato waxa kor u qaadmaysaa shaqaalaha khibradooda fahankooda plus inay qofkan uu garan karo qadiyadda Somaliland ka geynaysa halkee looga baahan yahay strategic aad u maraysid marka shaqaaluna waxa weeyaan ambassadorska bari shaqadii marka horeba aan u igmanayn aan wadnay ay runtii aan filaynaa in wax ka tarto sababtoo ah waxa weeye damoor qofkii lagu qalabeeyo aqoontii looga baahnaa meesha waxa laga filan karayaa runtii shaqo maaragtay efficiency oo effective ayaa runtii laga filan karayaa runtii taasina runtii shaqaalaha wasaaradda arrimaha durba way dareemeen isbedel weyn waana uga mahad celinaa madaxda wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeeya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal iyo agaasimaha guud wasaaradda Maxamed Cabdiraxmaan Xasan oo runtii halabuurkan la yimid iyo guud ahaan xukuumadda wadajir iyo waxqabad sababtoo waxaan had iyo goor mas'uul ka ahay reception and hospitality
ayaan had iyo goor ka shaqeeyaa had iyo goor wufuudaha soo dhaweyntooda iyo ama bixintooda ayaan maaragtay si gaar ah aan ugu xirsaaranahay dhammaantood koorsadii oo dhammaystiranna shaqadeeda wax badan bay ku tari doonaan kan imika ugu dambeeya oo ah protocol integrity and event managementina si gaar ah ayuu runtii u khuseeyaa shaqadeydii maalinlaha ahayd ee marka horeba aan waday waxaanu dhiganaynaa gift givingkii baanu dhiganaynaa waxaanu dhiganaynaa delegation receivingkii ama waftigii markii maadada sidii loo qaabilay baanu dhiganaa waxaanu dhiganaa sitting arrangementigii waxaanu dhiganaa all these things waana shaqada runtii dhayliga ah ee maalin walba runtii aan qabanno macalinkan Matasabe Tedesa runtii oo ah senior maaragtay diplomat kasoo shaqeeyay more than 35 years kasoo shaqeeyay maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ilaa darajada ambassador kasoo ahaa chief of protocol ki dalka Ethiopia oo dhan jiray in badan kasoo shaqeyn jiray isna runtii khibradeeda wax badan buu runtii ku contribute gareeyay waana uga mahad celinaa runtii isaga iyo macallimiintii ka horeysay faraha badnaa dhammaantood ambassadorska ah dhammaantood wada doctorateska ah waxaan rajeynayaa insha Allah inaan maalmaha soo hadhayna aan guul ku dhamaysan doono insha Allah